ololahan ayaa socon doona muddo 10 maalmood ah waxaana laga qaadanayaa dhammaan deegaanada Puntland xaflad lagu daafuray oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gobolka Nugaal waxaana ka qayb galay wasiirada caafimaadka iyo waxbarashada agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka agaasima waaxeedka caafimaadka asaasiga ah wasiirka waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo xafladda goobjoog ka ahaa ayaa xusay muhiimadda talaalka u leeyahay bulshooyinka Puntland maantaan qaadanaya talaalkan Johnson ka waxaan rabay markii hore inaan meel kale waado laakiin ana halka laygu daahfuraya kan maanta Johnson xaruntan ana qofka ugu horeeya isku talaala noqonaya Johnson kan company-gan hadda inoo soo saaray oo caalamka u soo saaray waa team Mareykanka dadku Mareykanka waa jecel yihiin marka daawadii talaalkii Mareykanka inooga yimi weeye wasiir Johnson ka noo soo badiya dadka jecel meel kasta gaarsiiya waliba hayadan ama company-gan soo saaray Johnson ka magaalada anigu aan deganahay Mareykanka ayuu headquarter-kiisu yahay meel aan ka shaqayn jiray uu ku dhagan yahay isma lahayn waxay soo saari doonaan dawo talaal oo lagu talaalo cudurkan ay soo saari doonaan hal mar baa kan la qaadanaya kii labada maaha kii labada inoo yaalo kii Chinese-ka inoo yaalo kii kale maxaa la oran jiray Sanika inoo yaala kuwa fara badan baa inoo yaala kana waa mid inoo soo kordhay wasaaradda caafimaadka oo wasiirku uu hogaaminayo runtii aad baan ugu bogaadinaynaa 63 goobood baa hadda halka laga sheegay oo isku daqiiqad laga furayo wadanka aad iyo aad baa maartay wasaaraddu ay ugu mahadsan tahay dadaalka ay muujinayso dadkeenu shakiga ha iska daayeen talaalka ha qaateen dhanka kale wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo daafuray talaalka ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay daafurka ololahan cusub ee talaalka COVID-19 waxa uu sheegay in talaalka uu ka bilowday 63 goobood oo ku yaala guud ahaan deegaanada Puntland wasiirka ayaa bulshada reer Puntland kula dardaarmay inay talaalka qaataan waxaana sidoo kale xusay in xog uu helay ay sheegaysay in dadka xanuunka u dhintay 3 bilood ee la soo dhaafay ay ahaayeen kuwa aan talaalnayn markii ugu horeysay maaha markii labaad waa mar kale oo aan ku dadaalayno inaanu dadka talaalka gaarsiino maxaa yeelay waxa muuqata muhiimadda talaalku ay leedahay ayaa adduunka oo dhan aad la isla qirsan yahay in xalka waara ee xanuunka COVID-19 uu yahay kaliya qofka in la talaalo difaaciisana kor loo qaado si uu xanuunka isaga difaaco 63 team oo kala duwan ayaa ka shaqeynaya talaalka waxa kaliya inagu soo kordhay waxa weeye nooc cusub oo talaal oo ku darsamaya noocyadii talaal ee aynu hore u haysanay waxa kaliya ay ku kala duwan yihiinna waa sida loo design gareeyay iyo cadadka dosiska la kala qaadanayo dabcan sida loo sheegay talaalkan Johnson waa hal dos qofku hal dos uu qaadanaya mid dambe qaadan maayo talaalo kalena way inoo yaalaan oo 2 dos uu qofku qaadanayo waxa ay tahay inaynu ku xisaabtanay qofku ku xisaabtama waxa weeye kii practically ama noloshiisa iyo shaqadiisa iyo sida waqti uu u hayo kii munaasib ku ah inuu qaato bay ku kala duwan yihiin